Assalaamu calaykum. Suuqa deynta Afrika ayaa si xawli ah u sii kordhayay sanadihii la soo dhaafay. Hay'adda lacagta adduunka ee IMF waxay kaga digaysay dalalka Afrikaanka ah khatarta ka dhalan karta deymaha caalamiga ah ee xawliga ugu kordhayay qaaradda Afrika. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa 10 dal ee lagu leeyahay deymaha ugu badan qaaradda Afrika. Ethiopia. Dhaqaalaha Ethiopia waa mid ka mid ah kuwa ugu koritaanka badan adduunka, waxayna ku jiraan qaab wanaagsan. Haddana weli waddankan waxaa lagu leeyahay deyn dibadeed gaaraysa $10 bilyan, waxayna nambarka 10aad ka soo gashay dalalka deymaha ugu badan lagu leeyahay Afrika. Nigeria. Waddankan ku yaala galbeedka Afrika wuxuu leeyahay dhaqaalaha ugu weyn Afrika ka oo gaaraya ku dhawaad $1 trilyan marka loo eego GDP-ga iyo awoodda wax iibsiga dalka. Laakiin waxaa lagu leeyahay deyn dibadeed gaaraysa $11 bilyan. Tanzania waa dal ku yaala bariga qaaradda Afrika, waxay weli ka soo kabanayaan hoos u dhac ku yimid. Qaranku wuxuu diiwaan geliyay deynta dawladda ee dakhliga gudaha ee GDP oo gaaraya 39% iyo sidoo kale deyn dibadeed gaaraya $11 bilyan. Ghana. Suuqa cusub ee ku yaala galbeedka Afrika wuxuu ka shaqeynayaa inuu noqdo dalka ugu horumarsan Afrika marka la gaaro sanadda 2030, halka sarifka saamiyada ee Ghana uu yahay kan shanaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. Laakiin waxaa weli lagu leeyahay deyn dibadeed gaaraya $12 bilyan, ka oo ka dhigaysa inuu soo galo lambarka 7aad ee kala sarreynta deymaha lagu leeyahay dalalka qaaradda Afrika. Angola. Inkastoo Angola ay leedahay keyd macdan iyo batrool ah oo aad u ballaaran, inta ugu badan hantida Angola waxay gacanta ugu jirtaa dad tiro yar. Qaranku wuxuu diiwaan geliyay deynta dawladda ee GDP dakhliga gudaha oo gaaray 1% iyo sidoo kale deyn dibadeed gaaraysa $20 bilyan. Tunisia. Waddankan dadkiisu carabta ay u badan tahay waa dal wax dhoofiya, waxayna kaalmaha koowaad kaga jiraan tartanka dhaqaalaha Afrika. Laakiin waddankan weli waxaa lagu leeyahay deyn dibadeed gaaraysa $25 bilyan. Morocco. Dhaqaalaha waddankan waa mid inta badan xor ah oo lagu xukumo sharciyada saadka iyo baahida. Qaranku wuxuu diiwaan geliyay deynta dawladda ee dakhliga gudaha ee GDP oo gaaraya 60% iyo sidoo kale deyn dibadeed lagu qiyaasay inay gaartay $20 bilyan. South Sudan. Qarankani waa waddan aad u deyn badan. Qaranku wuxuu diiwaan geliyay deynta GDP ee dawladda oo gaaraysa 83% iyo sidoo kale deynta dibadda looga leeyahay oo lagu qiyaasay inay gaarayso $40 bilyan. Egypt. Masar. Dabcan waxa uu ku yaalaa waqooyiga Afrika. Qarankan wuxuu diiwaan geliyay deynta dakhliga gudaha ee GDP oo gaaraysa 87%. sidoo kale waxaa dibadda looga leeyahay deyn lagu qiyaasay inay gaarayso $50 bilyan. South Africa. Waddankan ayaa ah waddanka ugu badan ee lagu leeyahay deymaha qaaradda Afrika. Inkastoo South Africa ay tahay dal dhaqaalihiisa mid dhexe yahay, saboolnimada iyo sinaan la'aanta weli waa mid aad u baahsan, taa oo keentay in qaranku uu diiwaan geliyo deynta dakhliga gudaha ee GDP oo gaartay 46% iyo sidoo kale deyn dibadeed lagu qiyaasay inay gaarayso $140 bilyan. Inkastoo ay sidaas tahay, haddana South Africa waxay weli tahay dalka ugu qanisan qaaradda Afrika.